marka hore sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhawaysanayaan halkan ka mahad celinayaa. waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa odayaasha qiimaha leh ambassador Yuusuf Garaad iyo tiimka xafiiska ee Faadumo ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhaweynteeda maanta halkan u joogay waqtigooda qaaliga u lumiyay runtii aad iyo aad u mahad celinayaa. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyay inay maaragtay ii soo duceeyaan. ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba laga soo duceeyay, marka dadkaasna waxaan leeyahay Ilaahay ajir idinka siiyo. waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyay runtii xilligii dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si degdeg ah amray in duulimaad qaas ah laygu qaado. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dawladda ka tirsanaa ee maaragtay ila xanuunsaday. runtii wixii dhacay 16kii January maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah, ilaaha naga badbaadiyay. laakiin qullan yusiibana ilaa ma kataballahu lana, waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan. marka qadarta alle ahayd waana ku qanacsannahay. waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu iga dhigo maaragtay dambi dhaaf. qof kastoo Soomaaliyeed oo maaragtay ii damqadayna waa u mahad celinayaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo Digfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan wal ay qabtay markii halkaa la geeyay. warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo ay joogaan dad rajo leh oo mustaqbalka ka shaqeynaya. marka aad ugu mahad celinaya maamulka iyo shaqaalahaas isbitaalkaba. sidaa ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan. marka hawshaasna maaragtay insha Allah waa sii wadi doonaa. waxaan ahaa qof Soomaaliyeed oo dalka ka soo shaqeeyay muddo dheer. waxaan ka soo shaqeeyay dhalinyarada iyo isboortiga, waxaan ka shaqeeyay caafimaadka, waxaan ka soo shaqeeyay muddo dheer saxaafadda. marka maadaama aan waqti dheer Soomaaliya xogaal u ahay, waxaan rajaynayaa beesha aan maaragtay kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka Hirshabeellaba inay fursad ii sii doonaan inaan dalka u adeego. insha Allah tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa in dalkeena uu nabad ka dhigo, Soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto. qof kasta oo maaragtay maanta soo dhaweeyay iyo kii qalbigayga soo dhaweeyay dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.